السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa oo aan bal dib u milicsanaynaa doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee madaxtinimada 15 bishan ayaa waxa ka soo baxaya xoog kala duwan oo ku aadan sida nabad iyo nolol ay ugu jabtay sababaha keenay guul daradooda iyo waliba waxa fashiliyay qorshayaashii muddada dheer ay soo maleegayeen ee ay ku doonayeen in mar kale ay ku hantaan hoggaanka ugu sarreeya ee dalka. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Kulana Jiis oo ka mid ah hay'adda sodonka qaranka ee Soomaaliya haatan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee lagu soo doortay Galmudug ayaa xog dheer oo bixiyay waxa uu faahfaahin uga bixiyay sababaha keenay in ay fashilanto ama uu fashilmo qorshihii bila Soomaaliya ay ku doonaysay mar kale in ay ku hanato ama ay mar kale ku guuleysato hoggaanka kursiga ugu sarreeya ee dalka ama hoggaanka dalka. xogtaasi baan idin soo gudbin doonaa bal ugu horeyn waxaan guulad oo dhinacayga fadhiyo weydiin doonaa arrintan iyo sida ay u dhacday iyo waliba faahfaahinteeda guulayso dhow. aad baa mahadsan tahay saaxiibka Ilka Case daawadayaasheena meel walba ay barnaamijyadeena kala socdaan waynu salaameynaa. wagaag Soomaaliya waan 15 bishan doorasho ka dhacday marka laga reebo wixii dadka la arkay iyo wixii la soo qoriyay inuu tabinayeen hadda oo doorashadii laga soo maalintii labaad hadda ay marayso shalay iyo maanta maalintii labaad ay tahay xoog badan baa soo baxay ku aadan doorashadan sida ay u dhacday sida nin qorshe uu watay ama koox qorshe ay watay uu uga fashilmay ama koox qorshe ay watay uu guul ugu soo dhamaaday ama ay ku guuleysteen bal nabad iyo nolol maxaa hawshoodii iyo qorshahoodii iyo 5 sano wixii ay soo maleegayeen ay soo wadeen maxaa dhaxdo u galay oo kala dib aad baad marka loo mahadsan tahay. horta xogtan aynu la wadaagayna dadka waa xog si sir ah ku soo baxday waxaana ku muuqanaysa Ilka Casow inta dhagarta la maleegay ay la ekayd iyo qorshaha la dejistay inta oo la ekaa iyo meesha lagu socday. Kulana Jiis oo in badan warbaahinta magaciisa laga maqlay laakiin muuqiisa ay waadhow ugu horeysay dadka intooda badan kana tirsanaa hay'adahan sirdoonka nisaga la shaqeynayay intii uusan xildhibaanka noqonin ka hor waxa laga soo bandhigay cod sir ah oo uu kaga hadlayo min bilow ilaa iyo dhamaad kooxdii farmaajo siday wax u maleegeen meelaha ay wax ka khaldameen iyo sida ay wax uga waxaysmeen. Kulana Jiis 30 iyo dhowr daqiiqo kaga xog waramaya si niyo ah jabkii ku dhacay waxa uu ka waramayaa meelaha ay wax ka khaldameen oo mararka qaar kood uu qoomameynayo waxa uu leeyahay oo isticmaalaya khaladkii ugu weynaa ee aan naftayda ka galay yay ahayd markii aan arrimaha doorashooyinka isagu ahaan markii hore kooxdan farmaajo ninka ay ugu tala galeen inuu doorashooyinka hago marka wuxuu leeyahay khaladkii ugu weynaa ee aan naftayda ka galo yay ahayd in aan amniga doorashooyinka iyo howlaha doorashooyinkaba aan ku wareejiyo Rooble. waxa uu marka ka soo sheekeynaya wixii ay qorshaysteen horta markii hore nolol wadaag waa tii lagu duulay maamul goboleedyada. wuxuu yiri maamul goboleedyadii Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyaga waxoodii waxanaga waan ka samaysanay waxa laf dhuun gashay nagu noqday ee mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaad qorshe kasta oo diyaarsan naga fashilinay waxay ahaayeen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland. qaabka ay rabeen inay wax u doortaan UEFA wuxuu yiri doorashooyin dadban in la aado qorshaha naga ma ahayn waxna lagu khasbay oo laga adkaaday yuu ahaa waxa uu qorshaysnayd in doorasho qof iyo cod ah laakiin aan maadaama deegaano badan la gaari karin loogu talagalay in ilaa dad 5,000 oo qof ah ay ka qayb galaan ay qabtaan waxa ay qorshaysteen oo dadkii codayn lahaa ay xitaa nambaradii u kala codayn lahaa dadka ay si kala qorshaysteen wuxuu yiri 5,000 qof 4,800 iyo wax la jira waxaan ugu talagalay inay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ay u codeeyaan inta ka soo hadhay si wixii aan loo dhihin orde bahasha baraxtira oo 100 iyo waxa yar ka soo hadhay ah waxaan u qaybinaynay dadka kale oo annagaaba u sheegaynay oo lahayn dadkaas siiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4,000 iyo waxaas yaa u codeynaysa hawshaasi way socon weyday khaladaadka kale ee ka dhacay
ee uu qoomamaysan yahay fartana dhexda ka qaniinsan yahay waxaa ka mid ah muddo kororsiga wuxuu muddo kororsiga horta muddo kororsiga intaynan u gelin wuxuu ka sheekeeyay qaabka baarlamaanka loo kala laalushay loogu guuleystay in la kala qaybiyo loogana dhigo kuwo guulwadayaal ah oo farmaajo waxa uu rabo uun ay afkooda ka soo bixi jirtay wuxuu yidhi tiro 70 oo xildhibaanada ka mid ah waxaanu ku gadanay codadkoodii inaan wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno aanu ka dhignay tiro kale oo uu 60 ku sheegay waa kulan jiis ninka hadlaya ee waxaan qiranaya tiro kale oo uu 60 ku sheegay wuxuu yiri iyaga bishu markay ay dhamaato yaan qasnadaha u furi jiray qasnadaha la furi jirayna uu sheegay wuxuu leeyahay qasnada gobolka Banaadir ee canshuurtii dadka masaakiinta ee Muqdisho laga aroorinayay iyo lacagta qadar yaan u qaybin jiray nimanka 60-meeyadaan iyagana codadkoodii sidaas yaan ku gadanay kuwa kalena qaabab uu san shaqeeyxin yuu yiri iyagana waanu ku gadanay inta marka laga yimaado baarlamaanka wuxuu ka soo reebay in yar oo uu yiri inay qayladaan ugu talagalay qayladoodana meelahaas aan ka dhageysan jiray marka ma xasafiin bi ma salaadiyaan ma salaadida kooxdii meesha ka dhaqaaqayli jirtay wuxuu ka sheekeynayaa mursal bahdilaad ku sameeyeen iyo qaabkii ay ula dhaqmeen iyo weerarkii ku qaadeen iyo wixii dhacay korontadii la goostay wixii yuu ka sheekeynaya waxba ku dheeraan meena wareysiga qaybta dambe ugu sii deynayna dadka aan dul marayna waxa kale oo haddana ka sheekeynaya aqalka sare sida fadhiidka iyo howlgabka ay uga dhigeen cabdi xaasho hogaaminay wuxuu leeyahay aqalka sare waxaanu fadhiid iyo howlgab uga dhignay sidii xadiis daciif oo xadiis kale lagu nasakhay meesha laga saaray yaana iyagana ka dhignay aqalka sare oo baarlamaanka kaliya oo baarlamaanka aan sidan u qaybinay yaan ka soo reebnay muddo kororsigii markuu u yimid wuxuu sheegay in ciidankii ay ugu talagaleen jagooyinka ugu muhiimsan ay u dhiibeen uguna talagaleen in dalkan ay ku maamulaan iyagii laga hoos shaqeeyay oo qaarkood laga hoos baxay aniga Saadiq Joon ahaa hor istaagay muddo kororsiga iyo ragii kale la midka ahaa badbaado qaran ee ciidankii marka ciidankii sida aan ugu talagalay iyagana nooma shaqeeynin guul daradooda min bilow ilaa dhamaad waxa uu afka salka u saaraya oo uu aad ugu nuxnuxsanaya in Jubaland iyo Puntland ay talaabo ka rogi waayeen wax kasto ay isku dayeen inay sameystaan labada ay mari waayeen ay labada ahaayeen intii kalena ay soo dardareen marka waraysigu aad buu dheeraa waxyaabo badan buu ku ifinaya waxa uu ka sheekeynayo waxa mararka qaar kood isdhihi miyaad riyoonaysaa mise ninku isagii baa qiranaya yuu ka sheekeynaya marka waxaan jeclaan lahaa bal daawadayaasheena inaynu iyaguna inala daawadaan oo aynu ugu duuno qaabka uu codkaasi u dhacay waraysi ma aha waa cod sira oo dad iyaga ah isku xog weeraysanayeen oo laga soo helay waxa dawada ku soo dhawaada codkaas sirta ah ee uu bixiyay oo dabcan dheer ninkaasi kamid ahaan jiray hay'adda sodonka qaranka Cabdullaahi Kulana Jiis haatan kamid aha xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo gala Galmudug waxa aad u maasan yahay guulada dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo